daawadayaal halkani waa ilayska dunida ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono mustaqbalka Soomaaliya iyo muranka doorashooyinka Soomaaliya 2022 waxaan isweydiinaynaa inta barnaamijkani socdo kana jawaabaynaa yaa isaya maxaa la isku hayaa dhaliilada dhinacyada isaya maxaa ka daahsoon dadweynaha odanleyda siyaasadda ay daaha gadaashiisa ku qarinayaan waddaniyadii shacabka Soomaaliyeed waxay noqotay inay u kala sacabatumaan siyaasiyiin danley ah maxaa ka dhalan kara xaaladaas maxaa dhici kara haddii aan maanta xal labdoon laga qaadan muranada doorashooyinka xalkuse muxuu yahay dhammaan su'aalahan oo maankaaga ka guuxaya ayuu ka jawaabayaa barnaamijkan oo uu idiin diyaariyey kanaalkiina ilayska dunida si dadweynuhu ugu baraarugaan waxa socda Soomaaliya oo wajahaysa tan iyo burburkii dawladii xoogga badnayd ee 1991 murano doorashooyin waxay markaan oo la joogo 2021 u tahay doorashadii ugu muranka iyo halista badnayd ee Soomaaliya marka la eego sida ay siyaasadda ugu kala tageen garabyada u muuqda jamaahiir iska soo horjeeda oo isdiidan kuwaasoo kala ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markale damaca uga jiro kursiga ugu sarreeya ee ummanka ku fadhiyo isaga oo garab ka dhiganaya saddex maamul oo kala ah Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed lagu daray doqa caasimadda Muqdisho guddoonka baarlamaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo Roble iyo 20 musharax oo u socda hal kursi gudoomiyaha aqalka sare ku xigeenkiisa koowaad madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland marka la eego waxa la isku hayo maahan sidee loo horumarin karaa Soomaaliya sidee dalku u ekaan doonaa 10 sano kadib sidee cadowga looga difaaci karaa Soomaaliya ama looga xoreyn karaa sidee shacabka la isugu soo dhaweyn karaa looguna gurman karaa sidee lagu qaban karaa doorasho dhammaan dadka u wada dan ah ee waxa la isku hayaa ama ujeedka dhabta ahi waa yaa madaxweyne ka noqonaya Soomaaliya yaa maamulaya guddiga doorashada sidee loo soo xuli karaa xildhibaano siyaasi walba oo xildoon uu rabo inay isaga dhinaciisa jiraan sidee ciidanka amniga sugaya ay noqon karaan kuwa la isku haleyn karo waa ciidan uu siyaasi walba doonayo inuu sidoo rabo noqdaan taasina waxay imanaysaa iyadoo uu dhammaaday muddaxileedkii madaxweyne Farmaajo baarlamaankuna aysan haysan sharciyad ay ku howlgalaan ilaa iyo iminka wali aan lahayn heshiis doorasho lagu qanacsan yahay marka la eego dhaliilahan daboolayn ee ka dhex jira dhinacyada ishayaa in siyaasi walba uu doonayo in loo sameeyo sida uu doonayo madaxweyne Farmaajo iyo xulufadiisa waxay doonayaan inay qabtaan doorasho natiijadeeda la sii ogyahay oo Farmaajo uu kursiga ugu soo laaban doonayo markii labaad si la madax kuwii maamulada Dhuusamareeb oo Galmudug ah iyo Baydhabo oo Koonfur Galbeed ah waxaa la xasuustaa waqtigaasi in dawladdu awood ciidan u adeegsatay doorashooyinkaasi mucaaradka oo la safan labada maamul goboleed guddoonka aqalka sare waxay doonayaan inay qabtaan doorasho Farmaajo lagu majaxaabiyo guddiyada doorashada laga dhigo dad iyaga taageersan ciidanka amniga laga dhowro doorashada si amniga doorashada ay u ilaaliyaan ciidanka AMISOM taa oo ka dhigan in Soomaaliya ay hoos fadhido caalamka waana arrin fadeexad ah sababahani daraadeed waxay Soomaaliya wajihi kartaa burbur hor leh waxaa intaas sii dheer in maamulada qaar ay dalbadeen inay deeqaha caalamka Soomaaliya siiso ay joojiyaan xaqiiqada ayaa ah in madaxda Soomaalida aysan israbin la isku khasbayo beesha caalamka ayaana isku khasbaysa jamaahiirtan isdiidan beesha caalamka oo iyada laftigeedu kale Soomaaliya dana gaar ah oo la xiriira daldalashada khayraadka la ku manaystay iyo inay god ku ridaan rajada Soomaaliya oo ah inay soo laabato Soomaaliya taa oo badi muwaadiniinta ku haminayaan beesha caalamka oo laftiga siyaasiyiinta la kala safan garsoorana u ah waxay rabtaa inay doorashada noqoto say iyadu rabto ee aanay noqon siday madaxda Soomaalidu rabaan waxaana la isku duleysanayaa waa deeqaha yar ee shisheeyuhu siiyeen dalkeena oo xujada daba taalo khilaafka u dhaxeeya siyaasiyiinta kursi jaceylku madaxa maray oo cidda la rabay inay runta u sheegto ay ahayd shacabka Soomaaliyeed iyagiina waxay u kala sacabatumayaan gariibada ishaya waxaana tani ay baasiin ku shidaysaa khilaafkii dhinacyadaasi ka taagnaa shacabka ayaa noqday xaabo la kala safan labada dhinac har iyo habeen iska weeraraya warbaahinta iyo baraha bulshada ku xiriirto beddelkii ay ahayd in shacabku taageeraan dalkooda oo aanay siyaasi taageerin
waxayna xaajadu ku sii aroortay weerar iyo weerar celis. Waxaa hubaal ah in haddii shacabka Soomaaliyeed ay ka soo horjeesan lahaayeen dhibaato kasta oo dhinacyadaas is haya ay dalkan la damacsan yihiin in uusan maanta xaalka halkaa joogeen, dushoodana aan lagu gorgortameen iyadoo weliba doorashada aanay go'aan ku lahayn. Dhib hadduu ka dhashana uu iyaga soo gaarayo, waayo haddii dhib dhaco eebba naguma keene cidda gubanaysa waa shacabka. Waxaana hubaal ah in siyaasiyiintaasi ay ubadkooda geysteen waddamo shisheeye oo haddii ay wax dhacaan uu dalka kaaga tegayo adiga. Cid walboo dhib la doonaysa ay hal meel uga soo wada jeestaan. Inkastoo aan la saadaalinayn in Soomaaliya dib loogu celiyo halkii laga keenay burburka barakaca iyo baroorta marka laga wacyiga dadka oo yaqaana dhibaatada dagaalka iyo dheefta, laakiin waxaa hubaal ah in siyaasiyiin badan haddii ay waayaan tooda ay doonayaan in dalka dib loogu celiyo jabhado. waxaana taa daliilku ugu filan wixii dhacay 19 February oo ay mucaaradku awood ciidan adeegsadeen, dowladda federaalkuna ay awood u adeegsatay joojinta dibadbaxii nabadeed ee mucaaradku wadeen. wuxuuse xalku yahay in labada dhinac ay isku soo dhawaadaan, mid walbana uu dib u noqdo danihiisa gaarka ah. waayo haddii maalin uu loo tanaasuli lahaa danta guud waxaa la heli lahaa heshiis doorasho oo lagu wada faraxsan yahay. laakiin haddii mid walba uu isku dayo inuu kan kale lugooyo, xaalku inuu ka sii daro mooye ka reynmayo. xalku waa madaxweynaha qaranka oo waqtigiisu idlaaday iyo xulafadiisa oo ka soo dega halka ay joogaan, miiska wadahadalkana la fadhiista, tanaasul la muujiya iyo mucaaradka iyo maamulada la safan oo iska ilaaba muranada kala dhexeeya fila Soomaaliya, iskana daya mahadhooyinka ay tirsanayaan, masiirka guud eega, maskaxdoodana ka saara inaanu xalku ku jirin mindi ku taag, iyaguna miis wada fadhiistaan, shisheeyahana iska saara si kalsooni ku jirto, si dadka Soomaalida u sii arkaan Soomaaliya hore u sii socota, maqaamkii ay hore u lahayn soo ceshata.